madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu anbabaxo dhanka wadanka Mareykanka. Safarkani ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee madaxweyne Biixi ugu anbabaxo wadan ka mid ah wadamada reer galbeedka tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Somaliland sanadkii 2017. Xukuumadda Somaliland ayaan hadal iyo qoraal toona ku soo saarin safarka madaxweynaha Somaliland ugu baxayo wadanka Mareykanka, inkastoo wasiirka amuraha dabaddu uu hore u sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu anbabixi doono Washington. ilo xogogaal ah ayaa u xaqiijiyay telefishinkan Saab TV in madaxweynaha Somaliland uu caasimadda wadanka Mareykanka kulamo kula yeelan doono saraakiil ka tirsan waaxda amuraha dabadda u qaabilsan Mareykanka ee State Department-ka iyo midda difaaca ee Pentagon, isagoo sidoo kale hadal jeedin ka samayn doona Machadka Heritage Foundation oo alaaba xooga saara cilmi baadhista iyo tacliinta, kaasi oo uu fadhigiisu yahay caasimadda Mareykanka ee Washington DC, isla markaana u janjeedha dhanka muxaafidiinta. wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland oo ay ka mid yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada, qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee dalka iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah ayaa la filayaa in sidoo kale ay kulamo la yeeshaan jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool USA. hore ayuu madaxweynaha Somaliland ugu anbabaxay dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Djibouti, Imaaraadka Carabta iyo Guinea Conakry, balse dadka ka faallooda xidhiidhka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ayaa ku andacoonaya in safarkani uu madaxweynaha Somaliland ugu anbabaxayo dalka ugu awoodda weyn adduunku, isla markaana sidoo kale ka mid ah 5 dal ee golaha joogtada ah ee qaramada midoobay ay tahay tallaabo diblomaasiyadeed oo hore loo qaaday. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka Saab, Hargeysa. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya, islaam iyo fatwa? waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 150 eber.